قليل لو أقول شيء أننا فينا ندان جوجنو وحنديار قلنا هاي إمارتي إن عن حرير هذا وحي تبرتنا كعاونه axmed cabdulaahi imid oo lagu naanayso aabbaha isboortiga oo soddonkii sane ee lasoo dhaafay ka shaqaynayay horumarinta arrimaha bulshada iyo isboortiga dalka Finland ayaa sheegay inay aasaaseen urur cusub oo lagu magac daray Tayo Youth Development Association kaas oo dadka Soomaaliyeed ka caawin doona arrimaha bulshada sida uu noo sheegay Mr. Imad maanta waxaan idinku imid oo halkan aan u imid in aan idin soo gudbiyo warbixin maadaama aan horay magaaladan Muqdisho uga soo shaqeeyay oo dhalinyarada wax badan u soo qabtay haddana aan ku soo kordhiyay inaan sameynay urur la magac baxay ururka horumarinta dhalinyarada ee Tayo oo aan rabno inaan dhalinyaradii maaragtay aan wax badan oo aan u qabano oo qaybaha arrimaha bulshada ay ka mid tahay ururkaasna wuxuu ka dhisnay dalka Finland haddana xafiiskiisii waa diyaar waaye markii aan laabtaan aan hawshiisa aan asagana galaynaa magaaladan Muqdishona waa ka sameynay oo registration aan ka sameynay marka waxaan rabnaa inaan bulshadan Soomaaliyeed wax u qabano oo aan la qabano wax kasta oo arrimo bulsho ah isboortiga haato noocyadiisa kala duwan iyo waxbarashada iyo tabarucaadda oo dhalinyarada loo sameynayo ayagana qaasatan ilmaha aqoontana ayagana aad baan u caawin doonaa marka qorshahaasaan maanta aan halkan u imid axmed cabdulaahi imad aabbaha isboortiga Finland waxa uu sheegay inay diyaar u yihiin inay ka qayb qaataan horumarinta waxbarashada caafimaadka iyo geedi socodka isboortiga Soomaaliya bishikan wuxuu yahay awalba shaqadan waa wadnay oo dhalinyarada waa caawinaynay haddana inaan kasii kordhino oo maaragtay aan kor usii qaadno horumarinta dhalinyarada inaan aad iyo aad uga shaqeynaan jecelahay ururada badanna waxaan kula talin lahaa in ay shaqadaasi nagu soo garab siiyaan ayna soo garab istaagaan si aan ummadan wax ugu qabano ururkan waa urur dhalinyaro waaye sidii dhalinyarada lagu horumarin lahaa qaybtooda isboortiga waxbarashada iyo maaragtay dhinac walba sidii dhalinyaradan loogu horumarin lahaa oo wixii annaga tabarteena aan ugu qaban lahayn in aan maaragtay ururkan qorshahaas u wataa waana ku dadaali doonaa sidii aan maaragtay dhalinyaradan u horumarin lahayn magaaladan Muqdisho iyo Soomaaliya waxaan ka sameyn rabnaa xafiisyo oo dad wakiila ay noo joogaan Finland annagaaba joogno marka saasaan rajeynaynaa in wakiilo badan ay wax nooga qabtaan halkan noo joogi doono oo ay nagu caawin doonaan horumarinta dhalinyarada ururo badan oo ka dhisan dalka Finland ayaa sanad kasta ka qayb qaata horumarinta arrimaha bulshada iyagoo saacida bahda isboortiga caafimaadka iyo waxbarashada waxaana Imad uu sheegay inay ka shaqeyn doonaan in la mideeyo dhammaan ururada ka shaqeeya waddanka Finland Maxamed Xuseen Qaliil aad u maasan tahay waa su'aal aad iyo aad muhiim u ah waxaan hadda u sameynaa ururkan waxaan rabnaa inaan ururo badan oo Soomaaliyeed oo dalkan wax u qabanayo oo dibadda ka dhisan inaan isu keenno oo aan ku dadaalno sidaan u midoobi lahayn oo wax u wada qaban lahayn maadaama qof walba urur leh waxaa waajib ku ah inuu dalkiisa wax u qabto asaga oo maaragtay oo ilaahay dartii wax ugu qabanayo haddana waa dadaalka aan wadano waxaa kow ka aba in aan ururadaas midayno oo aan maaragtay meel uga soo wada jeesano aan wixii isu geyno aanan dadkii wax u qabano wuxuu intaa ku daray mudane Imad in isaga iyo saaxiibadiisa ku bohoobay ururka Tayo Youth Development Association inay la shaqeyn doonaan dhammaan xiriirada kala duwan ee ka dhisan Soomaaliya kuwaas oo imin ku shaqeeya baahi kala duwan si dalku uu u gaaro guulo waaweyn oo taariikhi ah iyagana ay qayb ka noqdaan mustaqbalka qaliil loo ku sheegay annaga Finland hadaan joogno waxaan diyaar u nahay maaragtay in aan xiriirada wixii tabarteena ka caawino oo dawladaha Finishkan aan dhaqaale u weydiino oo wixii aan ku awoodi karnaa aan ku soo taakulayno wadankeena inaan garab istaagno markasta diyaar aan u nahay marka waxaanba hadda ururkan iyo howlahan aan u sameynay waa in aan dhaqaale ugu raadino dhalinyaradan dhibaataysan ee dalka joogto qaybaha isboortiga qaybaha waxbarashada qayb walba Soomaalida ku nool waddanka Finland ayaa door wanaagsan ka qaadata soo koobashada kobaca iyo horumarinta dadka Soomaaliyeed waxaana aabaha isboortiga Finland mudane Axmed Cabdulaahi Imad uu qurba joogta ku nool Finland iyo kuwa kale ee ku nool Yurub ugu baaqay qurba joogta meel kasta ay joogaan sida Yurub qaaradda America iyo wadamada kale ay joogaan waxaan leeyahay dalkii waa idin baahan yahay in wax la qabta maadaama ururada jirana ay dalka gudihiisa la inta badan xagga iyo Yurub iyo America ay ka shaqeeyaan waxaan kula talin lahaa in ay gudahan imaadaan dalkan wax u qabtaan dhalinyarada aad ay u badan yihiin marka waxa loo baahan yahay dhalinyaradaas in laga caawiyo wax alla wixii fasiilada ay u baahan yihiin